waxaan rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaara u jeediyo shacbiga Soomaaliyeed kana raali geliyo wax un dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan asmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda ay yeesheen waxaan ka codsanayaa in arintaasi waxaan ku wargelinayaa in arintaasi ay dhamaatay waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raali ahaadaan taasoo hadda alxamdulillaah waan isla meel dhignay oo ay dhamaatay waxaan aad u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo dadkii oo quraanka akhrinayay intii duceynaysay kulligood waa mahadsan yihiin iyo talooyinkii badnaa iga soo gaarayay muddadii azmad ay socotay dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaaday hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaad ku soo koobteen talada shacbigu soo gudbiyey intaasan ka qaatay saa daraadeed ayaan go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbigu aan u hahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaco ah maalinta arbacada 11 bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla ka sokow ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixid waa laga maarmaan shacbigeena in loo naxo ma qaadi karo shacbigeena in markaa murugo badan iyo dhibaatooyin badan lagu sii eego ma qumana saa daraadeed waxaan go'aansanay in arintaasi aan uga roonaano waxaa kaloo aan rabaa in aan martaa kulligooda ku baraarujiyo ama xusuusiyo Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliyeed annagoo dhan way naga wada weyn tahay mar walba waxa weeyaan waa dowlad curdan nahay in loo naxo in martaa la taakuleeyo in mar walba wixii wax ka soo gaaraya in martaa shakhsi ahaan wixii ah la hilmaamo danta guud iyo wanaagga guud ee Soomaaliya in laga raaco ayaa lagama maarmaan ah ma aan doonayno in dhibaatooyinkii laga soo baxay muddooyinkii ku meel gaarka ah iyo arrimihii guulihii in lagu noqdo iyo guulihii aan gaarnay oo la baabi'iyo waa arrin aan loo adkaysan karin marna aan yeeli karin arrinta kale oo aan weligay ilaa Agoosto bishii Agoosto 2012 markii xilka golaha shacbiga la ii dhiibay arrimaha mabda'a ah aan ku adkaysanay oo markaa ilaa haddana aan ku adkaysanay waxay tahay in aan mar walba iska ilaalino faragelin shisheeye in markaa arrimaha Soomaaliya dhexdooda ka dhaco in magaalooyinka magaalo madaxyada dalalka aan dariska nahay in loo aado arrintaasi ma ogolin wixii mushkil ah waxaanu leenahay golo shacbi oo shacbiga ka wakiil ah gaari kara go'aankii uu rabo alla ka sokoon ayaga uga sareeya Soomaaliya mushkiladeeda Soomaaliya xallin karta faragelin shisheeye ida loo ordaayo waan ka soo horjeednaa mana yeelayno annaka dhamaysan karna Soomaaliya ayaa waxa garaad u leh garanaya shacbiga Soomaaliyeed iyo wakiiladiisa dowladdiisa iyo madaxdiisa marka saa daraadeed waxa weeyaan waan ka sariiganay waan ka gadoodnay waan ka diidnay in marta faragelin shisheeye ay soo gasho xaalkeen annaka dhamaysan karna warka idinku badin maayo waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamiciyiinta ah oo inta telefoon soo diray mar walba iga weydiinaya qodobka maxaa lagu dhaqmo way sida maxaa loo yeeli waayay marka ayagana inay arkaan in dimuqraadiyada dhaqanka dimuqraadiyadeed oo aan hirgelinay ilaa ay hadda aanu gaarnay shacbiguna dhadhamiyay in banduuq aan lagu hadlaynin mar walbana dood wada xaajood iyo codayn lagu kala baxayo inay arkaan in mar walba nabad iyo ilaalin qaanuun iyo dastuur iyo sharciga aan dejisanay iyo shariicada islaamka iyo dhaqanka suubanay Soomaaliyeed in mar walba la tixgelinayo oo madaxdii Baritaan dhalinyarooy waxaad yeelaysaan mar walba waxaa furan wado nabadgelyo wado amni wado oo markaa is-afgarasho wado isu tanaasul ayaa mar walba furan marka aan ka ilaalino dowladdan curdanka ah inay dib u noqoto saa daraadeed wixii hadda waxaan rabay kaliya inaan idin xaqiijiyo madaxweynahan u xaqiijiyo in aan xilka ka wareegi doono berito haddii aan la yidhaahdo markii ammaanadii oo ay dhibtay xildhibaanada aan u celiyo inay rasmi tahay ayaan rabaa inaan u sheego inta aan ku soo koobo wixii kaloo dheeraad ah waxaan ku fasiri doonaa hadal jeedintayda berito aan ka jeedin doono golaha shacabka marka aan xilka iyo ammaanada aan u celin doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxweyne kusoo dhawo mudan jawaari waa oday Soomaaliyeed waa khabiir dhanka sharciga ah in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aad u far badan galiyay
go-aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah wax shuruudo ku xiran ma laha waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyay dowladnimada Soomaaliyeed gaar ahaan qabyaatirka dastuurka waxaan ka filaynaa inuu sii wado tala bixintiisii iyo tala soo jeedintiisa duulaahi raahid waxa waajib nagu wada ah inaan u soo wada jeesano xaqiijinta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed oo ah dawlad wanaag adeegyada aasaasiga ah inaan gaarsiino inaan si wada jir ah ugu istaagno arrimaha masiiriga ah xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto maadaama ay hor yaalaan hawlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka waxaan kaloo aan halkan aan ku raahdan aan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dawladda waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay garab istaagaan dawladda ayna la shaqeeyaan hay'adaha amniga ah si loo xaqiijiyo nabadgelyada dalka dawlad aysan shacabku garab taagnayn ma shaqeyn karto waxaana ku boorinayaa shacabka guud ahaan inay kaalintooda qaataan hadduu Ilaahay yiraahdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.